afhayeenka jamhadda mayalka iyo mowqifka adag ee TPLF Getachew Reda oo goor dhaweyd la hadlay wakaalada wararka ee AFP ayaa sheegay inay ciidamadoodu ay howlgal gaar ah ka fuliyeen gudaha deegaanka Canfarta. howlgalkaas oo ay ku bartilmaameedsadeen ciidamada gaarka ah ee Oromada. afhayeenka TPLF wuxuu sheegay in tallaabadaas ay u qaadeen si ciidanka Oromada dib loogu riixo looguna celiyo deegaankoodii. waana ku guuleysanay inaan taas sameyno ayuu hadalkiisa sii raaciyay. tallaabadeenu waxay ahayd mid aad u kooban oo aan kula dirirnay maleeshooyinkii reer miyiga ahaa ee ka soo jeeday qowmiyadda Oromada ayuu yidhi. maamulka Canfarta ayaa shalay ku eedeeyay in ciidanka TPLF ay ka soo tallaabeen xuduudka islamarkaana ay waxyeello u geysteen xoolo dhaqatadooda. dagaal faraha looga gubtay ayaa ka holcaya waqooyiga Itoobiya, halkaas oo ay ciidamada deegaamadu ku sii qulqulayaan si ay dagaalka uga qayb qaataan. Mustafa Cagshar ayaa 500 oo askari oo liyu boolis iyo Malaysia isugu jira u diray dagaalka waqooyiga Itoobiya ka socda. maanta ayuu sagootiyey si ay Axmaaro uga difaacaan Tigray. waa taariikh madow oo meel ku qoran inuu Mustafa Cagshar Axmaaro oo boqolaal qarni gumaysanaysay Soomaali uu garab u noqdo ugana heliyo qowmiyad kale oo Itoobiyaan ah oo duulimaad lagu yahay dadkeeda iyo dhulkeeda. wiilashan la diray ee dabka waqooyiga ka shidan xaabada looga dhigay sabab ay ku dhimanayaan oo dan Soomaaliyeed ah ma jirto. Axmaaro xuduud lama laha Soomaali, dhaqan, diin iyo luqad intaba ma wadaagno. kaaga sii darane ma aha kuwa Soomaali asxaan u haya Axmaaradu oo jiritaanka Soomaalida ayaysan banogolayn. waa dad aaminsan in dhulka Soomaalidu Itoobiyaan yahay, dadka Soomaaliduna dool ku yimaadeen oo goor ay ahaataba laga rabi doono dhulkaas. waa nimanka raba inay buurta Karamarda taalo uga dhisaan hogaamintii dhargiga ee naftadurayaashii Soomaalidu haligtay. sababta Mustafa Cagshar iyo maamulkiisu ay ciidankan ugu direen Axmaaro waa keliya inay kursiga maalmo yar kusii fadhiyaan. dhiiggii wiilasha Soomaaliyeed ee ku dhimanaya difaaca Axmaaro kilil ayay ku doorsadeen kuraas maalmo yar lagu sii fadhiyayo. Mustafa Cagshar iyo maamulkiisu waxay u sacabatumayaan in la soo celiyo nidaamkii dhargiga ee dhuux iyo dheecaan miradka ahaa, islamarkaana qowmiyadaha dalka oo dhan gumeeyey haba ugu sii daraato Soomaalidu. ceeb weyn, foolxumo ugub ah iyo bar madow ayay ku tahay taariikhda Soomaalida in maanta Axmaaro nafta loo huro. Mustafa Cagshar iyo maamulkiisa maanta waxay danqeen urkutaalooyin hore oo aan eelkoodii weli laga bogsanin. arrintan waxaa la dhihi karaa oo keliya Mustafa Cagshar iyo maamulkiisu waxay sagootiyeen meydadka boqolaal askari oo Soomaali ah oo ay aaskooda dhaafiyeen dhulka Soomaaliyeed waalidiintoodii iyo walaalahoodii ku samir lahaana ay ka fogeeyeen.